kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya xaalad dagaal oo ka taagan magaalada Boosaaso iyo Siciidani oo ciidan badan u soo diray magaaladaasi taliska ciidamada BSF Puntland oo go'aan culus qaatay kadib hanjabaadii wasiirka amniga ee Puntland dhufaysyo laga qotay magaalada Boosaaso cabsi soo wajahday Dani iyo xaalad culus oo ka taagan magaaladaasi iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka adag ee ka dhex taagan madaxda BSF Puntland iyo maamulka madaxweyne Dani qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkeena balse marka hore saaxiibayaal u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku bilawnay xaalad dagaal ayaa ka taagan magaalada Boosaaso iyadoo Siciidani ciidan fara badan uu soo diray magaaladaas si ay ula dagaalamaan ciidan kale BSF Puntland ciidamadii difaaca ee gobolka Sanaag ayaa qaybtooda ay ka soo baxeen deegaanka Galgubataale oo u dhaxeeya Ceergaabo iyo Badhan ciidamadan ayaa ku sii jeeda magaalada Boosaaso halkaas oo laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidanka kadib markii taliska BSF ay ku gacan saareen xilka qaadistii agaasimaha hay'adaas uu ku sameeyay madaxweyne Dani maamulka Siciidani ayaa qorsheynaya in ay dagaal kula wareegaan taliska BSF iyadoo ay xusid mudan tahay in ciidankan yihiin kuwa ugu tayada wanaagsan ee maamulka Puntland dhinaca kale odayaasha dhaqanka magaalada Boosaaso ayaa ka shiraya maanta xiisada ka dhalatay xilka qaadista madaxweyne Dani uu ku sameeyay agaasimihii ciidanka gaarka ah u tababaran ee BSF-ta oo ka hor yimid xilka qaadistaasi Ismaaciil Yaasiin oo kamid ah odayaasha dhaqanka Boosaaso ayaa madax dhaqameedka ku nool uu ku sheegay mid ay uga tashanayaan xasilooni iyo sidii looga hortagi lahaa waxa ka dhalan kara hadallada soo horjeeda ee labada dhinac kulanka waxa lagu casbay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland si loo dhageysto qorshaha ku haboon oo ay madax dhaqameedku ku wajihi karaan xaaladan haddii ay faragelin karaan iyo in kale si xal looga helo dhibaatada ka taagan magaalada Boosaaso waxaana wararkii ugu dambeeyay oo aan ka helayno Boosaaso ay sheegayaan in dagaal culus oo ka qarxay magaaladaas xilli kaabiga isku hayaan labada ciidan waa kuwa BSF Puntland iyo ciidamada kale ee daraawiishta booliiska Puntland ay leedahay Siciidani ayaa amray ciidamadan in haddii saacadaha soo aadan xilka wareejin waayo agaasimaha taliska BSF Puntland ciidanka ay weerar ku qaadaan xarunta BSF ee magaalada Boosaaso halkaana uu la wareego Dani ayaa qorsheynaya in dagaal ama dagaal la'aan intaba uu diyaar u yahay si uu xilka uga qaado ilmo Diyaano oo uu sheegay inay iska heesaan taliska BSF Puntland sanado badan laga soo bilaabo tan iyo sanadkii 2001 Boosaaso maanta waxa ka taagan qalqal iyo jahwareer weyn oo dhanka siyaasadda ah iyo ciidankaba waxaana magaalada lagu arkayaa ciidamo hor leh oo dhufeysyo ka qotay difaac iyo aagna lagu kala jiro sidoo kale taliska ciidamada BSF Puntland ayaa go'aan culus qaatay kadib hanjabaad ka soo baxday shalay wasiirka amniga ee Puntland hay'adda BSF ayaa shaacisay in aysan awaamirta dhanka amniga ka qaadan doonin ciddii shalay la shaqeynaysay cadowga inkastoo aysan sheegin magaca ciidaasi war qoraal oo ka soo baxay BSF ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada iyo saraakiisha BSF yihiin kuwa tababar fiican leh oo ku filan amniga shacabka war ka soo baxay ayaa sidoo kale waxay ku sheegeen in ciidanka BSF aysan ku milmin siyaasadda iyo ururada isla markaana ujeedada hadda laga leeyahay ay tahay in arrimo siyaasadeed loo adeegsado sidoo kale ciidankan ayaa waxa ay digin u direen Dani iyo golihiisa wasiirada oo ay sheegeen inay ku feejigan yihiin faragelinta arrimo dhowr ah iyo sidoo kale carqaladaynta maamulka iyo sidoo kale waxa ka taagan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Puntland Cabdisamad Gallan oo dhinacyadiisa ay fadhiyeen General Yaasiin Cumar dheere taliyaha guud ee ciidanka difaaca iyo saraakiil kale ay warbaahinta u faahiyeen xaaladda ka dhalatay xilka qaadista madaxweyne Dani uu ku sameeyay agaasimaha ciidanka BSF Puntland iyo diidmada ka soo yeertay unugtaas gaarka ah u tababaran oo Mareykanka gacanta ku hayo
galan ayaa ciidamada uga digay in ay colaad iyo xiisad laga abuuro magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari waxa uu taliyaha xilka qaadista lagu sameeyay u soo jeediyay in uu wareejiyo maadaama go'aanka madaxweynaha Puntland uu yahay mid waafaqsan dastuurka dowladda Puntland kaas oo muuqda mid aan socon doonin hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli xiisad ka dhalatay xilka qaadista lagu sameeyay agaasimihii BSF-ta oo ciidamadii BSF-ta oo careysan ay ka soo baxeen furmihii dagaalka taas oo hadda cabsideeda laga dareemayo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari xogaha kala duwan ayaa tilmaamaya in Siciidani ujeedkiisa ugu weyn uu yahay inuu burburiyo laantan tababaran ee Mareykanka gacanta ku haya BSF wuxuu u arkaa inay yihiin ciidamada kaliya ee maamulkaas amnigiisa uga cabsanayo maadaama Dani uu doonayo boobka doorashada golaha shacabka suuragalna ay tahay in siyaasiyiin reer Boosaaso ay ciidamadan garab siiyaan waana cabsidii shaki ugu weyn oo muujinaya Siciidani haatan uu weerarkan ku soo qaaday saraakiishii hogaaminayay ciidankan xilligii Cabdulla Cali Gaas ayaa wax ka bedel lagu sameeyay agaasimihii hay'adan BSF-ta balse ugu dambeyn waa la diiday muran iyo khilaaf dheer kadibna Cabdulla Gaas ayaa ka laabtay go'aankaasi Dani ayaa hadda laga yaabaa in uu dib u laabto magacaabisi iyo xilka qaadisi uu sameeyay maadaama BSF aysan ahayn ciidamada Suuriya oo hoosaga madaxweyne Dani maadaama Mareykanka uu tababaro lacagna siiyo qalabna siiyo waxaana hadda la sheegayaa in dowladda Mareykanka ay soo faragelinayso xaaladda ka taagan Boosaaso iyo dagaalka dhex qarxi raba ciidamada gaarka ah ee BSF-ta iyo kuwa kale ee dowlad goboleedka Puntland sidoo kale Siciidani ayaa laga soo xigtay in la fiis uga cabsanayo BSF-ta isla markaana uu doonayo in uu ku galo ama doorashada intaan uu bilaaban ka hor la soo gabagabeeyay ciidankan sidoo kale xogtu waxa ay sheegaysaa in Siciidani uu doonayo in Boosaaso uu ka dhigo meel dagaal iyo colaad ka taagan yihiin maadaama la sheegayo in Boosaaso uu tagirin Siciidani uu doonayo in doorashada la soo wareejiyo Garowe dhinaca kasta marka la fiiriyo qorshe siyaasadeed ayaa ka taagan magaalada Boosaaso oo dhan waxa laga wadaa amni darre dhanna waxa la rabaa in la diido doorashadaas ka dhacda waana waxay si weyn uga shaqeynayaan madaxtooyada maamulka Puntland oo Dani ugu weyn yahay madaxda hay'adda BSF-ta ayaa waxa ay markale ku celisay in aysan aqoonsanayn xilka qaadisii madaxweyne Dani ugu sameeyay agaasimaha BSF-ta Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee BSF ee ka amar qaadan agaasimaha xilka qaadista ugu sameeyay ayaa dhayaha ka fureysay dalabyada ku aadan inay xilka wareejiyaan waxaana ay hadda wadaan dhaqdhaqaaqyo culus oo qalqal ku abuuraya Siciid Cabdullaahi Dani wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya Boosaaso ayaa sheegaya in ciidanka BSF ee ku sugan Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso inay qoteen dhufeysyo dagaal kadib markii uu madaxweynaha Puntland Siciid Dani ciidankaas soo magacaabay agaasimo cusub ciidamada ayaa ah kuwo si aad u diyaarsan isla markaana loogu talagalay la dagaalanka argagixisada iyo sugidda amniga Puntland waxaana muuqata in Siciid Dani uu doonayo inuu siyaasad u adeegsado taas ciidanka si isku mid ah ay uga soo horjeesteen dhinaca kale ciidamadan waxa taageero ay ka helayaan dhammaan shacabka reer Puntland iyadoo laga cabsi qabo in ay duulaan ku qaadaan madaxweyne Dani oo afaarahooda soo galay maadaama ciidamadan BSF-ta yihiin ciidanka kaliya ee qof kasta oo Puntland uu isku halaynayo haddana Dani iyo xukunkiisa ay wajahayaan qalqal shacab iyo in uu kaco kacdoon shacab sidaasna xilku ku waayo Siciid Dani guud ahaan daawadayaal waa nageynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda Puntland iyo Boosaaso maanta circireysa wixii warar ku soo kordhala soo qaybaheena iyo wararkeena dambe tan iyo kulan dambe nabaadiino